سلام للطموح وطالبيه وحب للنجاح وما يليه تذوقت النجاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال سنين wanaagsan ku soo dhawaada chilka maanta media halkan aan ku suganahay waa mis jaamaca oo masjidka ugu weyn jigjiga haduuna deegaanka ugu weyn oo maanta xariga laga jaray halkan waxa yimid madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida oo xarig ka jaray masaajidkan oo in muddo 3 sano ah soo socday maanta waxaan soo eegaynaa gudihiisa iyo soo u dhisan yahay namash فقد حققت حلمك فاحمديه ولا تذري صروح المجد ملأ بغيرك. وطاي داوديال imika waxaan la taaganahay waa Maxamed Axmed Nuur oo ah gudoomiyaha gudiga masaajidkan maanta la furay isaga ayaa naga warbixin doona bal intuu masaajidku soo socday iyo goorta la dhameystay gudoomiye ku soo dhawow intee lagu masaajidka soo socday marka hore goorma la bilaabay. bismillaahir rahmaanir rahiim aad baan ugu mahadcelinayaa masaajidkan afartii bishii 11aad 2019kii taqriiban intaasuu masaajidkan ugu socday oo xilliga ay diintiisu bilaabatay afartii bishii 11aad 2019kii ayay masaajidka diintiisu bilaabatay maanta oo bishii abriil ay tahay 4 ayaa xariga laga jaray inta u dhaxaysa ayuu masaajidkaas isugiisu socday masaajidkan waxa weeyaan masaajidka waxa leeyahay masaajidka ugu weyn deegaanka masada uu ka kooban yahay baaxidiisu waa ugu weyn masaajidkan wuxuu ka kooban yahay 3 dabaq buu ka kooban yahay kulka baaxadda uu ku fadhiyo waxa weeyaan 1800 oo kaaraamitir ayuu masaajidkan kada ahaa inta lagu tukanayo ayuu ka kooban yahay xaweyn ayuu leeyahay meel qubays ah iyo meelihii weysada ayuu leeyahay masaajidka marka waxaa la oran karaa masaajidada jigjiga ku yaala masaajidka ugu weynaa weeyaan waana masaajidka ugu casrisan qaabkan standardkan uu dhisan yahay masaajidka ugu casrisan weeyaan masaajidkaas marka waxaa la oran karaa 5,000 oo qof ayuu qaadaa sida maartay nimanka injineeriyadu ay sheegeen 5,000 oo qof iyo in ka badan ayuu qaadayaa masaajidka. ومن بذل الكفاح جناه فيه وحوز السبق دوما في المعالي فإن السبق يرفع حائزيه حماك النحو يا أملي سلام للطموح وطالبيه وحب للنجاح وما يليه تذوقت النجاح فكان شاهدا ومن بذل الكفاح جناه فيه ومن بذل الكفاح جناه فيه فزهرتنا تقدم منك وطاي داوديال halkani waxa weeyaan rooftopka ama dusha sare ee masaajidka maanta la dhagax jiray masjid jaamaca dushan waxa weeyaan qaabka loo dhisay inuu standard yahay ay cadeynaysaa waxa weeyaan magaalada dhamaanteed ayaa korka laga arkaa sidoo kale masaajidka hadii uu buuxsamo waxa lagu tala galay in halkan lagu tukado laakiin su'aasha jeedinta waxa weeyaan masaajid 3 dabaq oo shaq u qaadaya mal jigjiga ma buuxin doonta kadibna rooftopka ma lagu tukan doonaa. تذوقت النجاح فكان شاهدا ومن بذل الكفاح جناه فيه ومن بذل الكفاح جناه فيه وحوز السبق دوما في المعالي فإن السبق يرفع حائزيه حماك النحو يا أملي وقارا كذاك النحو يمنح عاشقيه وأهدتك البلاغة كل حسن فطاب الحرف منك لسامعيه وسال النثر رقراقا عذوبا وغنى سلام للطموح وطالبيه وحب للنجاح وما يليه تذوقت النجاح فكان شاهدا ومن بذل الكفاح جناه فيه
ومن بذل الكفاح جناه فيه. زهرتنا تقدم منك جهد وحان الوقت كيما تحصديه، فنالي الفخر والأمجاد طرا فقد حققت حلمك فاحمديه، ولا تذري صروح المجد ملأى. waa tahay daawadayaal haddaba haddii aad joogto magaalada Jigjiga iyo nawaaxigeeda jimcaha soo socda ha mogaanin inaad ku soo tukato Masjid Jaamac. salaam. وما يليه تذوقت النجاح فكان شاهدا، ومن بذل الكفاح جناه فيه. ومن بذل الكفاح جناه فيه. وحوز السبق دوما في المعالي، فإن السبق يرفع